Soo dhawaada saaxiibayaal, fiidiyowan waxaan maanta kaaga hadlaynaa ama aan ku wareysanaynaa number one Somali YouTuber Asad Hajiyo oo khadka WhatsApp-ka online-ka ah. Bal aan soo dhaweyno Asad, soo dhawow. Bal aan ku horumarno magacaaga saddexan, bal noo sheeg. magacayga saddexan waa Asad Maxamed Xaaji ama Asad Maxamed Xaaji cali qofba soo yaqaano. magaca Xaajiyona waa magac family ah oo soo jireen ilaa ay awooway abshaxan. Waan gartay. Bal markaa waxaa leedahay magaca Hajiyo oo magaca gadaal ka raacsan, ma ahan magac naanays adiga ku gaara, sax? wax soo jireen way naanays waa family name waay. aabo waa sii socda. Okay, waan garanay. Bal Asadoo dad badan waxay isweydiiyaan Asad asal ahaan halkuu ka soo jeeda ama magaalada uu ku dhashay. Waqtiga Soomaalida qof walba deegaan buu ku dhashay oo asal ahaan dee kusoo barbaaray ama kusoo hana qaaday. Adiga Asad ahaan halkee bay noloshaada kasoo bilaabatay? waxaan ku dhashay degmada Markacadee khaasatan gobolka Shabeellaha Hoose. Okay, waan garanay Asadoo. Bal waxbarashadaadii asaasiga halkee bay asal ahaan kasoo bilaabatay? dugsiga waxaan ku bilaabay Enzilia wax la dhahay jiro oo koowaad mid ka hooseeyo. waxaan ku bilaabay dugsiga hoose dhexe Al-Raxmaan Primary. kadibna waxaan u wareegsaday oo dhanka dugsi sare aan ka dhigtay Machad Al-Ansar. Okay, intaa ku guda jirtay Asadoo waxbarashadaadii asaasiga ah, bal maxaad is leedahay way kugu adkaayeen barashadooda markii ay timaado cilmiga maadiga? waxaa igu adkeyd xisada xisaabta. Waa hagaag. Bal Asadoo marka ay timaado dhanka iyo miidiyaha, dhanka social mediaha, inaad noqoto YouTuber, maxaa kugu dhaliyay ama maxaa asalkeeda uu ahaa go-aankaas qaadashadiisa? YouTube-ka yani waxaan weligay ku fikir jiray ama waxaan jeclaa ma ahan, laakiin YouTube-ka qayb ka mid ah waxay ahayd wax aan weligay jeclaa ama wax weligay aan kusoo dhex jiray. haddii aaleed muuqaal samaynta ama muuqaal qurxinta, taas anigoo muddo ku jiro. sidoo kale arrimaheena aan si fiican isku soo dhawaanay asoo YouTuber ah. dhowr mar aan video arrimaheena channelkiisa aan lasoo sameeyey meesha asxaab ku yeeshay. kadibna waxay iga codsadeen in aan YouTube channel goona aan furto. sidaas aan ugu soo biiray codsi dadweynaha uu ka yimid waay. Arrimaheena baan ku soo xasuustay oo dad badan social media kaaga daawada ama kugu xiran waxaa badanaa ay isweydiiyaan arrimaheena Asad Hajiyo, bal ma walaala mase waa dad wada shaqeeya uun? may arrimaheena waa walaalkeyga marna waa saaxiibkeyga, laakiin saaxiibii marka laga soo tago waa walaal aan mar badan aan isla soo kornay, aan hal meel kusoo wada noolaanay, naas wada soo nuugnay, hooy aabe na wada dhalay. Su-aashan waa su-aal personal ah ama waxaad dooran kartaa inaad Skype dhahdo. Bal Asadoo goormaad is leedahay qoys baad samaysanoo waad guursan? waa rajayn doonaa, laakiin waqtigaas kuma dhigi karo, laakiin waan rajayn doonaa insha Allah. Bal su-aasha aan ku sii raaciyo, marka ay timaado dooqa dhanka hablaha iyo marka ay timaado dhanka isir ahaan ama qoys ahaan, qabiilkeed is leedahay waad ka guursan? wallaahi horta qabiilkaas kuma dhigi kari, laakiin aniga waxaan aaminsanahay wax markaas nafsadeeda jeclaato hadday ahaa lahayd qabiil kasta hadday u dhalato, yani markaas wixii nafsadeeda aad jeclaato aan guursan lahaa. Bal su-aasha aan sii raaco, marka ay timaado dooqa dhanka lagu dooqdo dabeecadda dumarka, bal maxaad is leedahay gabadhu waad kusii dooqan? wallaahi gabadh waxaan ku guursan lahaa hadday tahay qof aan isfahmayno, welibana qof aad iyo aad i ixtiraamayso, sidoo kalena sidaan ahay igu jecel. qoftaas aad iyo aad aan u danaya. Asadoo su-aashan waxa ay leedahay marka ay timaado in lagu fuduuliyo ama lagu soo ataagareeyo waxyaalo aad is leedahay waad dhibsataa oo aad ayaad ugu carootaa, bal maxay yihiin? wallaahi horta ani dadka xanaaqmi si walba hadaad wax khalad ah iga gasho, yani dadka si fudud ku xanaaqmi. waxaan aaminsanahay wax kastan inay wax dhacan ay yihiin, yani si fudud kuma xanaaqo. dabeecadaasna weligeyga waa lahaa, laakiin mar badan hadduu qofka khalad iga galo
ilaa 3 jeer waxaan ku qiimeynaa khaladka markaas uu ii galay sidaas oo ku xanaaqi karaa. inta aad nooleed cimrigaagu ma jiraan wax aad la yaabtay oo aad aragtay? Wallahi ilaa had wax yaab saas ah ma arkin. waa hagaag, bal markaan u gudubno dhanka youtube-ka iyo muuqaal samaynta marka ay noqoto, ma jiraan team ama qof kaa caawiyo muuqaal samaynta hadday noqoto dhanka editing-ka ama dhanka kaamirada? Aniga edit gareysto sidoo kale anigaan muuqaalada isaga duubo sida hadda camal anigaa samaysto. waan ka cudur daaranahay in su-aashaan si yara qalbigaaga u dhaawacdo, laakiin sida ka muuqato waxaa ku gaaray dhib physical ah. weli ma ku fikirtay dhibka dadka sababtooda uu kugu gaaray ama ku gaarsiiyey in mar uun intaad nooshahay aad revenge ku sameyso ama aad ka argoosato? May ma ku fikirin haddana mar waa inaan kaasoo. aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga qaaliga aadna siisay. daawadayaal intaas baan kusoo afmeynaynaa sheekadii koobneed ama waraysigii koobnaa aan la yeeshtay saxajiyo tani video xiga. see you, bye bye.